sheekh jaamac xuseen maxamuud sheekh jaamac wadaad oo ka mid ah culimada Soomaaliland isla markaana ah culimada sunnaha rasuulka iyo kitaabka quraanka kariimka dadka ku daweeya ayaa waxa uu ka hadlay xanuunka coronavirus ee ka dilaacay dalka China isagoo sheegay in xanuunkaasi ka dhashay cuqubo iyo cadaadis dadka Chiinuhu ay saareen dadka dalkaasi ku dhaqan ee Chinese-ka ee muslimiinta ah isla markaana ay ifka ku cadaabeen waxaan u sheegay taasi inay keentay in cadho Ilaahay ku dhacdo isla markaana xanuunkaasi loo maaran laayahay uu dalkaasi ka dilaaco isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala fayaqulu Allahu tabaaraka wa ta'ala فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون إلهي سبحانه وتعالى ولا ليال waxaynu baryahan dambe la soconay xanuun waxa weeye ku dhacay dawladda waxa weeye China oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weeye markay awood sheegteen Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weeye uu ku kibir jabinayo xanuunkaas oo waxa weeye ay u bixiyaan fayraska waxa weeye corona ay u bixiyaan doqoni qufacda baa leeyahay si meel looga yimi waxa weeye may garan waayo waxa weeye dadka muslimiinta ah bay dhibaateeyeen diintoodii bay maaragtay u diideen inay muujistaan iyo cibaadaadkii iyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala xiriirka ay la lahaayeen Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weeye markay ay muslimiinta ay dhibeen waxa weeye ibaada jamaaciya waxa weeye ay sameeyeen Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weeye waa ka argoostay waxa weeye meel aanay filanaynin ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weeye uu kaga yimi Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu inoo tusaaleynayaa oo quraankeenu waxa weeye mar walba ina tusaya waxa weeye adduunkan soo maray oo waxa weeye kibray oo maaragtay qooqayo xad dhaafay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala xuduudkii uu u dajiyay dhaafay waxa kamida waxa weeye reer caad Ilaahay subhanahu wa ta'ala aayadin imka akhriyay fa amma aadun fastakbaru fil ardi bighayri alhaq reer caad waxa weeye Ilaahay subhanahu wa ta'ala arlada korkeeda ayay ku kibreen ba alla yiri iyagan waxa weeye xaq u lahayn inay kibraan tabeetana qaaluu man ashaddu minna quwwa waxa weeye yaa naga awood badan bay yiraahdeen maanta adduunka cid naga awood badan oo waxaanu haysanay iyo sanaacadkaanu samayn kara waxa weeye ma jiro walidaalika waxa weeyaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay alam yaru war miyaanay arkayn ba Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu leeyahay Ilaahay miyaanay arkayn ba Allihii abuuray inuu iyaga ka awood badan yahay laakiin waxa weeyaan kuwa Ilaahay subhanahu wa ta'ala de rumaysan awoodiisa maaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma rumaysna dadka muslimiinta ah waxa weeye ay laayeen habaarkii dadka muslimiinta ay habaarayeen iyo baryadii kuwaas Ilaahay ay baryayeen ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala meel aanay filanaynin Ilaahay kaga yimi maanta waxay marayaan waxa weeye dhaqaalahoodii inuu siiro noqdo in waxa weeye la go'doomiyo dhaqaalihii iyo teknolojiyadii waxa weeye ay maaragtay ku faanayeen ayaa waxa weeye Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weeye uu ku fashiliyay oo Allah subhanahu wa ta'ala awoodooda maanta uu tusay inaanay waxba qaban karin oo teknolojiyadan iyo waxa weeye bila ka hor madaxweynahooda waxa weeye shaydaanka ah waxa weeye intuu maxfal soo istaagay ba waxa uu la soo istaagay sida reer caad maanta adduunka cid naga hormarsan oo waxaanu haysata oo waxa weeye maaragtay saanada iyo hubka iyo qalabka iyo sharaa'ika waxa weeye shirkadaha iyo waxyaabaha ganacsiyaadka iyo dhaqaalaha cid naga hormarsan ma jirto laakiin maanta waxa weeye dhaqaalahoodii iyo caafimaadkoodii iyo teknolojiyadii iyo wixii ay ku faanayeen dhammaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala siiro ayuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala u ka dhigay inay maanta taagan tahay wama kana liyujizuhu min shay Ilaahay subhanahu wa ta'ala shay ajisi gelinaya adduunkan waxa weeye ma joogo
ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkaasa waxa weeye uu ka muujiyey oo waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala waidaa araada allahu biqowmin suu'an falaa maradda lahu wamaa kaana lahum min duunihi min waal ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii qoom waxa weeye xumaan uu la doono oo inuu halaago iyo cadaab uu alle subxaanahu wa tacaala ugu talagalo cid waxa weeye uga hiilinaysa oo alle subxaanahu wa tacaala ka qabanaysa waxa weeye ma jirto waxa weeye dowlad kasta oo qooqda iyo qof kasta oo waxa weeyaan dulmi la yimaada waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala taasoo kale ayaa waxa weeye uu ku qabanayaa ina badasha rabbika la shadiid ilaahay subxaanahu wa tacaala qabashadiisu waxa weeye waa mid daran dadka muslimiinta ee waxa weeye ay dhibaateeyeen ee dadka muslimiintiina waxa weeye ay daawanayeen sida waxa weeye loo baabiinayay oo waxa weeye maanta dadka muslimiinta aanay isu damqanaynin cidina waxa weeye runtii aanay u hadlaynin ilaahay subxaanahu wa tacaala baryadii ay baryeen ilaahay waa ka ajiibay waxa weeye dowladdii jaynana ilaahay subxaanahu wa tacaala waa uga aargooyey maanta waxa weeye dariiqyada inay ku madhaan oo waxa weeye maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu waxa weeye tusay xanuunkaasi waxaan edhan karaa waa aaya من آيات الله وحوي وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر إلهي سبحانه وتعالى وحوي عيدا كيسة وحوي ماركت أسكرتي سعد إلهي سبحانه وتعالى يوتر كوبنت مجران الله أحين محمد عبد الله سوفر ستار تي في مقالة بربراء